calaykum. Kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ka hadlaya horumarinta nafta. Horumarinta naftu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee tahay qof walba inuu naftiisa u sameeyo. Laakiin ka inaga mid sameeya ama intee inaga mid sameeysa. Waxaad la kulmaysaa qof 60 sano jira. Marka aad la fadhiisatay la sheekaysato, hadalladiisa iyo fikradiisa wuxuu kula muuqanayaa qof 20 sano jira. Sidaas la mid ah waxaad la kulmaysaa qof 20 sano adduunka joogay. Laakiin hadalladiisa iyo xikmadaha ka soo burqanaya wuxuu kula ekaanayaa qof khibrad 60 sano leh. Qofka waxa cimrigiisa ama da'diisa ka weynaysiina wax kala maaha. Naftiisa ayuu waqti geliyay. Waxyaabaha naftaada ka horumarin karta aad ayay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah dadka kugu xeeran xiriirka kala dhaxeeya wanaajiso, jirkaaga oo dhisto, caafimaadkaaga oo ku dadaasho, iyo sidoo kale inaad wax akhriska iyo cilmi baarista aad badiso intaad nooshahay. Marba marka ka sii dambaysa sii siyaadisid. Waa muhiim inaad naftaada horumariso. Ka soo qaad muddo 10 sano. Waqtiga firaaqada meel kaliya fadhiisata lagu yaqaan. Asxaab kaliya la socota, wax kaliya xiisaysa oo ahmiyad kale, wax isbedel ma jiro. Xageed ku socotaa? Ku faraxsan tahay sida hadaba waxa kaliya ku ogaan kartaa inaad wadadii saxadeed ama tii qaldan aad hayso. Waa inaad naftaada weydiiso hal su'aal oo ah haddii isla sidaan hadda u dhaqmayo aanu dhaqmo, saxaabtaan hadda la socdo aan la sii socdo, sidaan wax u bartay imika aan wax u barto, 10 sano soo socota naftaydu xagee gaaraysaa. Jawaabta ku soo baxda hadday noqoto mid ku farxad gelisa ama aad raali ku noqotid waayaan daro. Laakiin hadday ku farxad gelin weydo, isbedel samee. Koow bedel meelaha aad fadhiisatay lagu bartay. Isku day inaad barataa saxaab cusub. Saxaab cusub markaad barato waxaad ka faa'iidaysaa inaad waxyaabo cusub aad baratid. Inaad waxyaabo cusub noloshaada ku soo kordhaa iyo inaad cusub aad u fikirtid. waxaad arkaysaa dadka oranaya waan caajisanahay. Haddaad weydiiso su'aal ah maalin walba maxaad qabataa, usbuuc walba maxaad qabataa ama bil walba maxaad qabataa, jawaabta ku siinaya waxay noqonaysaa mid kaliya. Shay kaliya ayuu ku soo celceliyaan maalin walba, usbuuc walba, bil walba. Markaas sidee baadeen u xaajiseen? Naftaada xaq bay kugu leedahay. Si xaqeeda oo horumari. Hayasin ama hayaraysan hawsha ama shaqada gacanta ku haysid hadday yar tahay ee ku celceliyuun. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri habul a'maali ila Allah udaawimuha wa in aqal. Hadaba inaad naftaada horumariso maaha micnaheedu inaad PhD qaadato. Laakiin si aad PhD u gaadho maalin walba ugu yaraan hal sadar. Ugu dambeyntii si aad naftaada u horumariso samee 3 shay. Ka koobaad go'aan qaado. Go'aan qaadashadu waxa ugu muhiimsan uguna adag ee qofka bini'aadamka naftiisa u sameeyo. Ka labaad bedel ashyaada kugu hareeraysan. Ka saddexaad uguna muhiimsan bilow maanta. Waxaad maanta qaban karto bari ha u dhiganin. Aad ayaad u mahadsantihiin.